السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي ذي ميركستو أدجوكتان كسو دوادا عشر كيني conversation كاها أيا مانتي قد قلي دونا maadaama ay dad badan oo asxaabta ka mid ah ay naga soo codsadeen inaan soo gudbino casharada conversation-ka horta sidiisaba waxa la yiraahdo conversation maxaa la yiraahdaa conversation-ku waxa la yiraahdaa wada sheekaysi kaas oo dhexmari kara laba qof oo iska soo horjeeda kuwaas oo isdhaafsanaya erayo conversation taas ayaa la yiraahdaa ayada ayaan dhexgeli doonaa conversation-ka iyo sida loogu hadlo luqadda English-ka ayaan wada geli doonaa. Okay, how are you Sidee? How are you Sidee? I am fine, waan fiicanahay. I am fine, waan fiicanahay. What is your name? Magaca. My name magacaygu is Ahmed ayaa la yiraahdaa. And you adigana. Mine magacaygu is Farxiya ayaa la yiraahdaa. How are you? Condition halkaagu waa sidee? How is your condition? How is your condition halkaagu waa sidee? My condition is well, halkayga waa wanaagsan yahay. If we hadii start aan bilowno our conversation wada sheekaysigeena what you mean maxaad ka qabtaa? Every mind waxba kama qabo. Where hageeba were you adiga born aad ku dhalatay? I was born waxaan ku dhashay in Somalia, wadanka Soomaaliya ayaan ku dhashay. Why sababteeba are you looking at u fiirinaysaa tiir halkaan? I am waiting waxaan sugayaa for someone qof ayaan sugayaa. Are you a student ma arday miyaa tahay? Yes, I am a student arday ayaan ahay. Where are you student xageed arday ka tahay? I am a student waxaan arday ka ahay in Al-Hijra school, iskuulka la yiraahdo Al-Hijra. Aan ku celino. How are you Sidee tahay? I am fine, waan fiicanahay. What is your name? Magaca. My name is Ahmed ayaa la yiraahdaa magacayga. And you adigana. Mine magacayga is Farxiya ayaa la yiraahdaa. How is your condition? Halkaagu waa sidee? My condition is well, halkayga waa wanaagsan yahay ama waa wacan yahay. If we hadii start our conversation what do you mean? Hadii aan bilowno wada sheekaysigeena maxaad ka qabtaa? Every mind waxba kama qabo. Where hageeba were you adiga born aad ku dhalatay? I was waxaan ku dhashay born in Somalia. Where were you born? Xageed ku dhalatay? I was born waxaan ku dhashay in Somalia, wadanka Soomaaliya ayaan ku dhashay. Why sababteeba are you adiga looking out u fiirinaysaa adiga halkaan? I am waiting waxaan sugayaa for someone qof. Are you a student ma arday miyaa tahay? Yes, I am a student arday ayaan ahay. Where are you a student xageed arday ka tahay? I am a student waxaan arday ka ahay in Al-Hijra school, iskuulka la yiraahdo Al-Hijra ayaan arday ka ahay. Hadda mar saddexaad aan ku celiyaa casharka. How are you Sidee tahay? I am fine, waan fiicanahay. What is your name? Magaca. My name magacaygu is Ahmed ayaa la yiraahdaa. And you adigana. Mine magacaygu is waxa weeye Farxiya ayaa la dhahaa. How are you? How is your condition? Halkaagu waa sidee? My condition is well, halkayga aad buu u fiican yahay. If we hadii start our aan bilowno conversation wada hadalkeena what do you mean maxaad ka qabtaa? Every mind waxna. Where hageeba were you adiga born aad ku dhalatay? I was born waxaan ku dhashay in Somalia, wadanka Soomaaliya ayaan ku dhashay. Why sababteeba are you adiga looking at there? Halkaan aad u fiirinaysaa. I am waiting waxaan sugayaa for someone qof ayaan sugayaa. Are you a student ma arday miyaa tahay? Yes, I am a student waxaan ahay arday. Where hageeba are you adiga student arday aad ka tahay? I am aniga student waxaan arday ka ahay in Al-Hijra school, iskuulka la yiraahdo Al-Hijra. Waxaan u maleynayaa inaad fahanteen insha Allah, aad fahmi doontaan hadduu Ilaahay yiraahdo. Casharo kale muhiim ah ayaan idin soo gudbin doonaa, midka ka muhiimsanna waan idin soo gudbin doonaa. Halkaana waad uga bogan doontaan casharadayni tilmaamayaashii oo daad iyo diis noo harayna waan soo gudbin doonaa hadduu Eebbe yiraahdo, waadna ka faa'iideysan doontaan. maadaama cashirkaani ay naga soo codsadeen dad aan saaxiibanahay isla markaana jecel inay hore u sii socdaan. dadka oo tilmaamayaasha qaadanaya laftigooda way ka qayb qaadanayaan oo way baran karaan. waana loo baahan yahay in la barto waxyaabaha la barto ay qayb ka tahay, waayo
haddaad luuqadaha intoodii ugu muhiimsan aadan baran waxa baa kaa dhimansaan u malaynayo. luuqada ingiliishkana waxaa marka la fiiriyo qeyb ay ka tahay kuwa maanta loogu dhaqmo ama lagu isticmaalka badan yahay dunida. marka insha Allah waxaan idin sheegi doonaa in casharadii daadka iyo noo dhinaa oo tilmaamayaasha ahaa aan soo gudbin doono kuwaana aan dardargelin doono insha Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.